marwada koowaad ee dalka Marwo Zainab Cabdi Macalin oo lagu garab istaagay dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay fatahaadaha webiga Shabeelle iyo Jubba dhawaanahanba ka waday Mareykanka iyo danjiraha Soomaaliya u fadhiya xarunta qaramada midoobay Ambassador Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baalle ayaa soo gaaray habeenimada xalay ahaa garoonka caalamiga ah ee Seatag ee dhaca magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka. wafdigan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaas waxayna socdaalka wafdigan u daaranaa inay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaas la wadaagaan duruufaha iyo darxumada haysta dadka Soomaaliyeed ee ku halakoobay fatahaadaha webiga Shabeelle iyo Jubba. dadkii garoonka ku soo dhaweeyay oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay diyaar u yihiin garab istaaga dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda. waa habeenkii koowaad oo aan la kulmo marwadii koowaad Soomaaliya waxaan leeyahay soo dhawow Zainab Cabdi Macalin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay adiga iyo waftiga kula socdaba inaad soo gaartaan. marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynayaa marwada qaranka Soomaaliyeed Marwa Zainab Cabdi Macalin waxaan leeyahay ku soo dhawow magaalada Seattle aad baan ku sugaynay runtii waana ku mahadsantahay barnaamijkan aad soo bilowday oo aad in badan soo waday inaad halkan nagu timaado inta badan madaxda qaranka nama soo gaaraan marka aad iyo aad baad u mahadsantahay. caawa dharara kuma jirto caawa waxaan Seattle ku soo dhaweynaynaa marwadii koowaad ee dalka Soomaaliya Marwo Zainab Macalin. gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Seattle Marwo Sahra Faarax ayaa soo dhaweysay wafdigan waxayna sheegtay inay jaaliyada Soomaaliyeed diyaar u tahay inay garab istaagaan dadkooda iyo dawladooda. maali hadii aanan saan iskugu wada shaqeyn ama iskugu wada duubanin waligeed ma gaareyno anna Soomaalinimadan waxay tahay wax horta aan u wada dhimano maama Zainab marwadayna Soomaaliyeed ku soo dhawaad Seattle Washington aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa oo nagala soo qayb gashay oo noogu timid Seattle. danjiraha Abuukar Baalle ayaa jaaliyada Soomaaliyeed uga mahad celiyay sida ay u soo dhaweeyeen waxa uu sheegay inay tahay markii ugu horeysay ee uu soo gaaro gobolka Washington isagoo sheegay inuu marar badan ku soo laaban doono. jazakumullahu khayran wa mahadsantihiin soo dhaweyntan sharafta la ma filaynin aad u mahadsantihiin waana markii ugu horeysay Seattle imaado waxaan rajaynayaa in marar dambe ku soo noqon doono dad sharaf lahatiin insha Allah khayr Allah idin siiyo. marwada koowaad ee dalka Marwo Zainab Cabdi Macalin ayaa u mahad celisay jaaliyada Soomaaliyeed waxayna ku amaantay sida milgaha iyo maamuuska leh ay ugu soo dhaweeyeen waxayna marwadu sheegtay in madax badan hadda kadib soo booqan doonaan. Soomaalidu wuxuu ku maamaadaa ninka argiisa deeqa oonkiisa deeqa reer Seattle waa idin jeedaa intaan baa igu filan sida aad ii soo dhaweysaan sharafta leh ay hubinay noqoto furii ugu horeeyay aan ku furo Seattle oo madaxda iga dambeysana ay yimaadaan bilaa soo socdo waan rajaynaa bidmillah kariim dad wanaagsan aad tihiin waa mahadsantiin dalkooda jecel insha Allah habinta ma kala warqaadanayna axadda marka soo dhaweyntiin oo ku mahadsantiin wiilal iyo gabdho ee gabdhuhu ugu horeeyaan mar walba aad iyo aad baan idin salaamay jazakallahu khayr. Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka.